السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel baan wax ka daarayaa warka iyo newska hala sugo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وقاليقا سو دواد ميل كستو كسواتين او ديقلا سعوتان سو دواد ايني ليهاي سو دواد أصحابي لبدا بيجو ديقلا سعوتان برتان كوليهاي فيسبوك إخلاص حسين فيسبوك إخلاص حسين سو دواد وما ديقلا سعوتو هليا سو دواد جنال يوتيوب على سي عبدي dadka iga arki doono ama iga fiirsan doono ayagana waxaan leeyahay igala socon doono waxaan leeyahay soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo qisadii aan noo soo geliyay xalay macnaha oo qisada qaybteedii labaad waay hadda taan ka hadlayo qisadii xalay aan ka sheekeynayay qaybtii labaad waay tan caawa aan ka hadlayo insha Allah inaan guda galaan rabaa mana sii dheero intii badneed xalay baan ka hadlay qisada qaybteedii badneed xalay baan ka hadlay laakiin waa intii dambeysay yaan raba hadda inaan sii daadiyo maama xakiimo yacni qisooyinkii waxyaalihii ay soo martay waa nooga sheekeeyey xalay baa nooga sheekeeyey laakiin intii dambeysay xalay meel noogu joojiyey aan raba hadda inaan dhammaystiro asxaabay waan ina salaamaya malaa'ika ina salaamta soo dhawaada haddaad Facebook igala socotana share gareen iyo follow inaad siisaa laga rabaa haddaad YouTube igala socotana subscribe iyo follow baa laga rabaa marka laakiin ma aqaana like iyo waxaad u baqiileysaan anigu garanayo ma garanayo haddaad gacanta fidisaan lacag baan inagu yeelanaa maa la yiri ma aqaana ma garanayo Soomaaliya iftaa ma garanayo marka walaalayaal soo dhawaada maadaama qof YouTuber ahay waxaan jeclahay asxaabtayda inay maaragtay ay booga ii fidiyaan oo gacanta ii fidiyaan oo macnaha ay maaragtay subscribe iyo like ay saaraan YouTube inay page ka booqtaan marka asxaabay waa inaga codsanayo soo dhawaada marka sheekada xalay aan barka tagay baan rabaa qaybtii labaad inaan dhammaystiro oo maama xakiimo sheekadeedii ay noo soo dhiibtay marka soo dhawaada sheekada waxay ahayd maamadii maama xakiime ahayd inteedii badneed xalay baan ka hadlay sheekadan intii dambe hadda dhamaystirkii way hadda waxaan ka hadli rabo inta dambe dhamaystirkan ka hadlayana waxa weeyaan maamada say sheegayso xilli waxay tiri aroor ah yaa waxay tiri anigoo hurdada ka toosay ee salaad subxeed la adamayo ayaan waxaan maqlay tiri cunug yar oo ciyaal oo waaq oo ooynay macnaha marka waxaan mooday tirahay ilmo ooynayo haddana waxaan dhahay ilmo meenyaanyuur oo wax shanqaraayo siday maama xakiimo sheegayso marka waxaan dhahay tira bal gurigaada meenyaanyuur baa soo gashay mise ilmaha ka dhex ooynaayo say sheegayso maamada guri weyn oo waxay deganeed ilaahay baa weyne oo macnaha waxaan deganaa way tiri guri filla ah guryaha muqdisho xamar guryaha fillada yacni guri kor iyo hoos maaha ayaa waa guri filla ah oo guryaha falayga oo isku dhex dhisan macnaha yaan deganaa bay tiri oo weli waxay tiri annagaa iska lahayn bay tiri guriga marka waxay tiri wadaadii waxay tirahay xagga albaabka kore oo shanqarta ka maqlay oo ganjeelka guriga laga soo galo marka xaggaasaan u dhaqaaqay oo xilli arooray ahayd oo salaad subax tukanayo marka waxaan maqlay tiri cunug yar oo hintiisa caruur yar oo markaa la dhalay marka waxaan dhahay tiri waxaan ilmo mahee dariskaadana ilmo ma dhaline kolley waxaan manyaanyuur baa shanqaraysaa mise cunug ilmaa ooynaya marka xagga albaabkaan u dhaqaaqay tiri albaabkii kore ganjeelka kore guri laga soo galaan u dhaqaaqay tiri cunug baaba ooynayaa albaabka gurigayga la soo iridiisaaba la ii soo dhigay tiri anu ma arkaayo tiri marka waa dadka aygan waxay tiri marka way hurhurdayn laakiin aniga waxaan u toosay tiri salaad subax inaan tukado iyo cunug oohintiisaan maqlay tiri
ganjaalka albaabka koraa furayta haddaan furaba misana waaba canug yaroo mara lagu duduubay waaba canug yaroo waxay tiri calal lagu duduubay markaasaan dhahay tiri waxaan macruurba cunug yoo wag loo ciiday ilmo yaroo markaa la dhalay oo hin ku sheeg oo bannaan la dhiga dabeel qabow markaasaan dhahay tiri allayaa inta dhigay baan dhahay tiri allayaa inta dhigay alla canugaan yarka yaa dhaxanta meesha ku tuuray markaasaan haf soo siiyay tiri waa soo qaaday waan saa u soo qaaday tiri ilmihii yarka ahaa markaasaa waxay tiri gurigaygaa la soo galay tirahay waxay tiri carruurtaydii iyo wixii dadkii dhan ilaa odaygaygi waa hurdaabay tiri odaygayga xilligaa ugu hurdaabay tiri carruurtaydin waa hurdaanbay canugii baan guriga la galay canugii baan waxay tiri meel fadhi aan la fariistay waxaan isku day tiri horta wuu ooynayaaye bal inaan wax ku dadaadiyo wax waraabiyo ilaa ilmuhu yarku markay baahayi way cabaadayaan markaasaan waxaan afka u saaray tirahay wax yaroo caano iyo wax saasaan waxay tiri u qasay waan waraabiyey wuu aamusay tiri markaasaan soo toosiyay tirahay odaygii xaajigii ilmaha ka dhalay maama xakiima xaajiga carruurta ka dhalay iyo wiilasheeda waaweynaayo kurayaasha nimana waaweyn bay dhashay maamada wiilasheeda carruurteeda way u kaagacdo way u waaweynaadeen baan soo toosiyey waxaan dhahay tiri warbal tooso salaadii waa la taagan yahay arrin kaloo cusubna xaafad way kusoo biirta saakay markaasaa la soo kakacay iyo anigaaba canug haayaaba oo hooya canugan xagee ka keentay war albaabkan ka soo qaada odaygu wuxuu leeyahay canug xagee ka keentay war gurigayga ridisa la soo dhigo canugan yarka handhay canuga marka waxay tira gabar weeyaan bay tira gabar weeye xuduntini way ku taallaa bay tira canug hadda la dhalay xuduntini waa ku taallaa lagama soo gooyo xudunti macna wuu wataa ilmuhu markay dhashay xudunti way ku taallaa Soomaa marka waxay tira canuga xuduntini way ku taallaa waana caana yaraan si way aamusay marayar ku duubna mariyaan ilahay ku qabta hadana markaas waxaan dhahay bal tukada sheekada bal hanoo dambaysay salaadii ilaahay baan tukanay waagi salaadii baan noo soo iftiintay dariskii baa soo wada kakacay dariskii baan u tagnay waxaan dhahnay tira war canug yaa dhalay oo irada noo soo dhigay jiiraanka kuwii nagu wareegsanaa dhan baan u sheegnay tira waa lagu soo wada yaacay bay tira roortii baan lagu soo wada kallahay ilmaha yaraa guriga noola soo dhigay ilinkiisa markaan dhahay hadda jiiraanku waad aragtayo ilmaha inta la soo dhigay markii la dhaho nin walba roortu kabu soo xirtay canuga yaa soo dhigay nin walba ma ogi ma qaano markaasaan isweydiiyey war tolo wani albaabkayga maxaa lagala soo doonay ilmuhu meelaha jidasha iyo masaajidyada iyo ayaa lagu tuuri jiray maxaa gurigayga lagala soo doonay war ma ruuxi garan baa dhalay war ma inay ilmahayga waaweyn yihiin oo wax korin karaa la fahansan yahay war ma inaan lacag haasaa la fahansan yahay oo cunugan inaan soo koriyo maa la rabaa war darisow maxaad aragti markaasaa la yidhi ya waa ruux ku garanayo baa soo dhigan ruux ku garanayo oo adi islaan dhalmada ka baxday inaad taho oo carruurtaada ku waweynaatay canugana aad korsan karto qolo ka war hayso unbaa kuu soo dhigtaan markaasaan dadkii dhan isugu yeeray tir marka ilaa aan canugan koriskiisa dhib iguma haytir waa korin karaa laakiin waxaan diiday tir hadhow in lagula qabsado markaasaan waxay tiri jiiraankii kubii gadaal iyo hor meel walba deganaa isugu wada yeeray tir ani iyo odagayga isugu yeernay tir marka waxay tirahay markaan iskugu soo kaayeernay ayaan waxaan dhahay wariyaada beedka hala booqto calaso subscribe la saaro ya like barta Facebook aad igala socotaan calaso hala qoro oo YouTube-ka subscribe la saaro like la dhaho si waxa soo gali aad la socotaan sheekadan aan ka hadlayo waa qaybtii labaad weeye ma garanaysa qaybta labaad weeye waxaan ka hadlayo macnaha sheekadii hore xalay baan soo galiyo oo macnaha barnaamijkan waa qisa waxa weeye oo maaragtay xalay aan ka soo sheekeeyay qaybteedii labaad way hadda waxaan ka sheekeynaa marka channel YouTube ha la gaaro subscribe ha la saaro like iyo comment-ina waa xaqiiniya marka asxaabay sheekada waa noo sii socotay islaantii xakiime ahayd qisadan ku timaaday arrinta nooga soo sheekeysay waxay tiri hooyo xakiime waxay tiraahay cunugii dariskii baan isugu yeerna aniga duqaygii bay tiri marka waxaan dhahnay tiri war ma maqlaysaa canugan annaga wixii noola soo iridda noolagu soo dhigay gurigeen hortii loola soo aaday waa dad annaga na garanay kolley inaan korin karno og bari ka maalina markuu cunugan koray rabaan inay nagu qabsadaan yacni aniga ilaahay dartiisana waan u korinaynaa laakiin hadhow ruuxii inuu ugula qabsado rabo haddaba canugiisa ha iga qaato haddii kale ahayn
يا مركز ليرنا هذا وسك كرسي لير دم حال سمينا إلهي درتسنا أجر أوقاب بس سيدي بان عند waa gabar bayt gabadhu marka waxay tir gabar yar oo quruxsan weeyay tir gabadhu cunuga yarka wuu quruxsan yahay bayt gabar yar oo qurux badan waayay tir oo midab qurxoon leh oo qurux badan waayay وكاد واقصدي وياك بدنا adduunyada intaan sheeko soo dhureyn ma garanaysa way wallahi way iga yaabin doontaa sheekada marka sii dhageysataan Soomaaliyeed waad sii yaabi doontaan malaha marka waxay tiraahay gabadhii yareed baan isbitaal baan geynay waxay aheeday waan magaceedii waan soo qoranay magac baa xaytir magacaan oo la baxay waxaan u bixiyay tira amran dadka qaar waxay dhahanay tira iyo caruurteedii waxay dhahanay tira hooyo amiiro u bixi amiiro maya amran aan dhihiyay tira ani amran oo la baxay laakiin amiiro dheh baa leedahay waxaan amran ugu bixiyay يعني أنا وحيت عرفتي دوا كورن واو وينادين لكن قبل دنيرتا حتى يسكرته أو إلهي أنت نفط الرالي نوجا وضبطه وحلايا عدة إذا إنا كان نقطة أمير كعدة أميرو جورجن إذا أمير كان نخونا يسا وشيكذا أمير يا أمرن دواس لما يشي مكتين مركا قبل دنيرتا أميرة أو بحني أمرن يا أمير عرفتك برنا أميرة يدهان أنا لكن أمرن أو بحيت magaceedi baan soo diiwaan gashanay caanaheedi calalkeedi suuqi waan tagnay shoobin baan usoo iibinay caana usoo gadnay wax walba u samaynay markaan habeenaan cunugti haynay tira oo waxay tira aniga caruurtayda hadday islaan dhalmada ka baxday oo caruurteedu kaaga caday baan haybayt oo haddana ilmaha haystooda xiisaaban marka u leenahay xiiso ayaa noo hayso ilaa caruurta markay ku weynaatay ilma yar haddii lagu keen xiisaad u haynaysaa moogta oo mideeda kale cidi cunug yar malaha nin walba la cunug yar baa leeyahay waa lagu orday waa la qaadaya marka waxay tiraahay aan ilmahayga waxa weeyaan bay tira laba wiil ama taane ay ahayd oo ugu weyn oo labada wiil aan ku curto waxa weeyay tira ilmaha aan ku curto ma taanay ahaayeen waa sida sheekada xalay inaga soo sheekay ma taanay ahaayeen labada wiil oo ugu weyn reerka ugu weyn waxay tira waa ma taano 20 sanayna jiraan ay marka ma taanaha mid ka mid ah ayaa gabadha jecel bay tira gabadha yartu jecel yahay in ceeda lagama maro markay wiiqtiraha uu soo qaada hooyo maradu ka bedeli aanu siin wuu qabeyn hadu midka kalena saasku ma sii raacinay bal qisada yaabkeeda Soomaaliya ay dhagiina furta oo toro waxay soo wadaa waa yaab iga yaabi marka labada wiilo mataanaha mid baa cunugtan daacad oo qaadaya oo haynaya oo kaale arag midka kalena uma sii jeedo على كل حال أذي عنق تيرت وينو كرتي لكن هبينا أورا مركان عانا وسوق قادنا عانا سيسين وينجا حمص تايتر الماء يرير كده ما أقانا حوالي الدوايش اللي بيجا مع مية ما أقانا وينجا حمص تايتر نختار بانجيني داوينا الله سوق القرى أذي عاري مجديد يسمى أقانا هبينا أورا وحيت وينجا حمص تايتر مركي دم عاري وينلا قبص تايتر ويسكفي ناطق الحمد لله إلهي مهدس إلهي ونقول قولي قبل يرد كرس كذا 3 سنة نو gaartay 3 sano ayay amiire yar ama amranaysa u taqaanin in intii loo bixiyay 3 sano cagaha la gashay gabadhiireed markay 3 sano jirto oo waxay tira xilliga ilmaha ay hadlayaan ilmuhu markay 3 sano jiraan waa xilliga ay ugu sheekan macaan waa xilliga ay dadka gambarka u soo qaadaan waa xilliga quruxdooda ay soo baxo cunugu markuu 3 jir caafimaad qabo u yahay si fiican hooyo fiican ay koriso hooyo fiican oo nadaafad leh oo maxay hooyo fiican oo u dadaaleyso oo si daacad loo hayo oo nadaafad laga sameeyo oo si fiican kala cunugaas noloshiisa iyo nadaafadiisa la isku dheelitiro 3 sano ilmaha yarka oo tarbiyo wanaagsan la tuso cunuga yarka wuxuu noqon ilmaha xariirka ilmaha sheekadooda la fiirsado wuu qoslaya wuu sheekeynaya gambarka ruuxii maado iyada u geynaysa orad waxay isoo qad way keenaysa adigu inantii labada jeclaabay tir guriga ruux weyn iyo ruux yar ilaa odigina de aabbu u noqtay de maxay tir odigayna aabbay tiraha anigana hooyay dhahdaa caruurtiina abbow abbaayan bay dhahdaa marka inantii yarteed markay 3 sano noo gaartay ayaa waxay tira maalinba waxaaba albaabki soo garaacday oo anagoo warba ka haynin iridii albaabki kore nagu soo garaacday gabadhii markii hore aan ka sheekeynayo shaqaalada iyo heebayt oo waxay tira gurigayga ku kortay oo intaas oo sano ii shaqeynays oo marsay u joogto un tiraha eedoy waxaan rabaa gobolkeeni tuuladii reerkayga deganaa inaan aado
fasaxa la isiiyo haye nooma soo noqonaysaa haa waan soo noqonayaa fasaxan siina gabadhiina waxay naga maqan tahay tiri intii muddo sanad bay isaga dhow miya ay naga maqneed bay tiri adig bilooyin badan yay iska maqneed bay tiri ma annagan waxay tiri telefoonka ma haynin hadda waqtiga Soomaali telefoonyada iyo waxaan ka jireen ma aha magaalada xamar laga yaabay tiri leen inuu yaali laakiin tuulooyinka gobolada telefoon ma jirin dadku waxaan ugu wada sheekaysan jiray warqad gabadhii haddii iida wayna garanaysayo warqadii iida la rabin xaggeeda ka soo qorto may soo qorin shaqadina umay soo noqonin annagiina hadda waa inay noo soo noqoto waan jecleen laakiin may soo noqonin gabadhii baa albaabka kor soo garaacday bay way soo garaacday albaabka kor ay soo garaacday adig gabadhii baa ilaahay dib u soo celiyay waa gabadhii noo shaqayn jirto naga maqnayd intii muddo ah oo gobolka reerkooda deganaa tuuladii ku maqneed gabadhii markay albaab soo qoftay arwaa heblaaya ka fura heblaayadina salaantay gabadhii waaye hadday waxay tiri ii shaqayn jirtay oon soo kori iyadoo yarba la ii keenay tiri anigu intaa waad gurigayga kasoo shaqayn jirtay gabadhii markaan albaabka ka furnay oon jambar u dhignay oo biyo qabow u keenay oo iyada hadda maxaan ku yiri iyadoo yaroo waxay ii timaaday tiri iyadoo yaroo gabar yar oo adi ilmahan 12 sano jirto ayaa shaqaalanimo la iigu keenay tiri gabadhaas markay iga tageysana waxay jirtay tiri adiga 17 meelahaas way jirtay ama 18 meelaha way gashay shanti weyn bay ahayd bay tiri laakiin fasax bay inta hore qaadan jirtay oo reerkooda way aadi jirtay wayna ka soo noqon jirtay markay 2 bil ama 1 bil ku maqnaato way noo soo noqon jirtay laakiin haddeer markay naga tagtay dib haraka may soo noqonin si dhaqsi ah may soo noqonin laakiin ilaahay amarkii hadda way soo noqotay irdaabkii laga furay gambar baa loo dhigay carruurtii wada taqaano dhan baa wada salaameen dadkii dhan baa salaamay heblaay maata gabadhi magaceeda waa lagu wada yaacay waa la salaamay gambar loo dhigay biyo qabow baa loo keenay gabadhi markay biyo cad cunugta yartana ilmaha yar kale markuu ruux imaado oo dadkii wada salaamay ilmaha yar way salaamaan moogtaa cunugtii yareed amran dhaheed ama magaceeda amiira yar aheed oo aniga aan korsado cunugtii yarta aheed waxay tiraa ayadana gabadhi bay iska salaamta carruurta yarta ruuxii guriga imaado way iska yooyiftaan way salaamaan moogtaa gabadhi yareedna way ku orotay qoftaan gabadha markii gabadha salaamtay gabadhi unbay xambaaranaysaa dhabta unbay saaranaysaa bal qisada la yaabkeeda waa meesha ugu yaabka badan saxaabay waa meesha ugu qosolka badan waa meesha markaan dhageysto maskaxdayda aan dhir adduunka nin adduunka joogow maxaa aragti ku laaban baan maqli jiray nin adduunka joogow maxaa aragti ku laaban waa arrin la yaab la Soomaaliyeed marka waxay tiri gabadhi unbay soo qabataa dhabta unbay saartaa gabadha yartan way baqanaysaa oo qoftan ay ka cabsanaysaa way iska fufujinaysaa inay ka fakatay rabtaa markay inay ka fakatay rabtaa dhab unbay soo siinaysaa dhunkasho unbay ku dhufanaysaa way dhabtin bay ku reebaysaa markaasaan dhiyay tira naa kuma rabtay iska sii daa naa way kaa baqanaysa kuma garanaysa iska sii daa gabadhi waxay tira gabadhi unbay si waxay u dhunkani bay tira ama ruux gabadhan aqaanay oo garanayay ama habar hooyo cunugeeda dhunkanays camalay u dhunkanaysaa bay gabartan markay naga tagtay ayaa cunugtan ilinka noola soo dhigay oo macnaha muddo bilooyin badan ay naga maqan tahay yaa cunugtan irida noola soo dhigay hadda maxaa leeyahay tire maxaa islaantan gabadhan maxaa gabadhaysaa ugu dhunkanaysaa ama isugu celcelinaysa isugu dhajinaysa naa kuma rabta way ooynaysaa iska sii dambalay markay ka fakata way soo qaban sheeka unbay iisii bilaabay gabadhi unbay dhunkasho ku waale marka yay tiraahay hooye hebloy hooye ii dhahdaa marka waxay tira gabadhaan shaqaaladii ahaan jirta ani hooye ii taqaan hooye hebloy bay dhahdaa hooye macnaha maamada waxaa la magaceeda waxaa la yidhaahaa ii sheegay maxaa la yidhahdaa xakiimo maama xakiimaa la yidhahdaa maamada hooye xakiimoy ani waxaan rabaa inaan wax kuu sheegee gurigana geli qolkana geli markaasaan haya dhahayta waa gabadhii waxay tiri ii shaqeyn jirta waxay dhahay hooyo gurigana geli waan wada hadlaynaa anu waxaan leeyahay maxay sheegi rabtaa naama noo soo noqoto horta anagu ma noo soo noqoto inaad noo shaqayso haabay dhado ku tahay haye anigu waxay tiri shaqaalo waaban la'aay ilaahay baaduu ii keen waaba alxamdulilah baan dhahay tiri gurigii baan galnay tiri haddaan gurigii galnay oo fariisanay waxay tiri hooyo xakiimoy gabadhan yarta ruuxii dhala ma taqaanaa bay tiri markaasaan gabadhe ma cunugtan yartaa yaa dhalaan dhahay tiri hooyo anigaa dhala ku tiri ma adigaa dhash oo haddaan dhash maxaad albaabka iigu soo dhigtay markaasay tiri wiilkaada iga dhalay
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم markaas waxay tir waaga ugu bariyay tir aniga dhabba waxay tir aniga dhabbo nooc kala noqday tir waaga hatire ma wiilkeed da wiilashayda waa kan ka dhala waa labada uwa waxay tir waa mataano labada wiilo uwa weyn waa mataano kuwa kalena way ka siireen labada wiilo weyn adi 21 sano meelahaas ay jiraan bay markaas ay tir كاوي كان كادل مدك مطانياشا مدبا قبل الضاعات بو سومالينا شيغي مدبا قبل الضاعات بوها او الهاينيه او افر لما تكسا او هنتيدا iyo gabadh ir ka fikiri jiro oo hooy way oo soo qaadi hooy aanay rabtaa hooy marada laga bedelaya oo dhigi jir kaas ma aha kan kale oo care like ka aha oo macnaha isku soo dhadajinayno cunugta kaas aa dhala ku taa ma hebel baa dhalay ha hebel kan kala ma dhalin may kan ani marka waxa leeyahay waxay isdii doontaa kii gabadha uu jecel yahay si fiican buu yahay aan leeyahay kaasa dhalay dhii doontaa waan isla qabtay meehe waxa dhalay tira kan kale labada wiil midka kale gabadha aan u jecleen kaasa dhalay tira oo soo kaaga dhalay gabadha wiilkay goorma ka dhalay cunug markaas ay tira hooyo inta aan ku shaqeynay oo guriga ku joog ninkan wuu iskuansanay wuu jeclaa wuu shaqaansanay ma xasuusataa maalin aan ani fasax iniga qaadan jiray oo dhii jira maanta waxaan aaday tuulo heblo haabaytan hebel maalinta guriga muu joogo asag laftirkii way raacay maad ogeyn adiga meeshaas aan isku cararnay waa isla fakanay waa is soo meerxadna wala hawla wala quwwata illa billahi cadiim war Soomaaliye waa midaan adduunka iga yaabisay tanaagtu aabay qabtaa hooyay qabtaa walaalay qabtaa yaa meeri shaytaan ma meeri marka dadka horta badana ani Soomaali ma garanay waxa ka jiro ma garanay dhaqanka Soomaalida ani fahmi mahayo wallahi ma fahmay dadka isku dhaqan ma Soomaali isku dhaqan ma Soomaali markii la yoo laba ilmaadeer isku dhaqan ma de markii la leeyahay naagta waa la meherxay yaa meheriyay mideeda kala naagta wali baa meheriya waxa meheriya walaal baa meheriya aab baa meheriya hadii la waayo xigtadii baa meherisa walaayid dadkaas ay fuuraysaa laakiin Soomaali waxa ka banaan gabdhaha iyo nimanku way isla fakanay meel tuuraal isla tagi waa la soo qootay waa la soo meherinaay calaasha wax qoota liira ma qashay qoota la isla soo galay gabadha dhii wiilkan hooyo heblo wiilka gobol heblo maalin aan aad jira mataqaan meel aan dhii jir maalin meesh maanta fasaxaysi aha maalinkaas wiilkaad isoo meheriyay markaas aan dhahay tiram hebelna maalinta ma ku raacay ha markaas ay ugu soo dhacday tira ninkana maalintaas in la waayay oo haddana asagana ugu la socday maalinta ugu raacay weligoodna wax jecel iyo wax sheekana kama dareemin bay tira gabadhaas 18 sano iyadoo jirtay waxay tira iga tagtay ilaa 12 sano iyadoo jirta shaqaalanimo la igu keenay weligay kama dareemin bay tira yani wiilka ay gabadha laba qof oo sheeka ka dhaxay kama san dareemin de ilma guriga wada joogo oo hal meel ku wada koray gabadha markii lii keenay way yaraad bay tira 12 sano meelahaas ay jirtay tira markii dambe gurigayga waxay ku gaartay tira shanti weyn bay ku noqotay tira gabar weyn oo qeyn gaartay oo weyn oo la guursan karay ahayd bay weligayna ninkan iyo naagtaan isku ruruganay ama jecel isdaba wareeganay weligay ma barkinay tira ani hooyo waxaan u haabay tira naa waxaan ii kariyo dharkan ii dhaqay guriga ii tirtiran baan dhii jiray marka ilan gabadhu ninkan hoostu ka qabay ana waxna kama oogiyay markay gabadha yarta adiga dhashaaba ay taray way ii dhaartay waxay tiri aniga dhalay asagana wait baan hadaad mood asaga wait hado markaasaan xanaankaare la kugu riti maxaad iigu sheegi waysay ood ii dhihi waysay wiilkaada i mehersada aabihiisi ani maxaad noogu sheegi waysay markaasay tiri hooyo waan baqaday waan cabsaday canugaad ma iradii soo dhig taana irida ku soo dhig albaabkana ku soo dhig asagii waan garabka qabtay ani aabihiisa u baxnay tir kaale iyadoo meel inta ku jiraan dhanay tir bal aamuso dadka iyuna maqlina bal aamuse wiilkayga waan gacanta qabtay tir ani iyo aabihiisa gacanta qabanay tir qol baa la galnay waxaan dhanay tir warheed gabadhan wixii sheeg oo sidan hebla leedahay maxaa ka jira macnugta yarta miidinka dhasheen ma adaa meersata ha cunugta yar miidinka dhasheen ha oo hooyo maxaad inta iiga qarinaysa cunugtaan ani irida la soo dhig wax dhalaan garan la oo ilaahay dartiisa ka korinay hooyo maxaad u qarinaysa hooyo haddaan ku sheegi lahaa waa la ceebayn lahaa maxaa lagu ceebayn lahaa naag buu meherxadaa lagu ceebayn lahaa haye gabadha marka waxaa weeyay tir gabadhan cunugtan dhashay
وعريرها waxay tira Soomaaliya la yaso Soomaali waxay tira dad yani Soomaalidu soo reere ay yasaan ma jirtay tira ay yasaan oo qabiilkan lama guursado oo la faquuqo macnaha reerkan lama guursado la yiraahdo dadka lama guursado la yiraahdo guurkooda laga faa way ay ka dhalatay tira gabadhan wiilkii wuxuu bay dhahay tira hooyo haddaan dhihi lahaa hooyo gabadhan aan jecelahay ama aan meersaday waxaa la dhihi lahaa naagtan isma guursano nama geyso kuma geyso gabar kale lagu dooni ma jirto gabadhan ma guursanaysa reerka isma guursano gabadhan reerkeeda lama guursado ayaad adiga aabahay dhihi lahaydeen ama saaxiibeyga dadka saaxiibahay familka ay dhihi lahaayeen hooyo saasaan u baqaday laakiin أنا كبر واجي على ذي إذا نوي إيش حلاتي وإسلا فكرني تقول هبلا إسلا تجني وإسسون مهر حطني تمر أي ولا عيسى واقعي أو إذا أوري نجتكتي أنا كانوا وان بقى هالدانشة أنا وحس هاي أنا لك وهم كل التلي ما كي أوري نقطان قال الماء كاسر ريدو الماء ها كاسر ريدو لكن أيضا يجدد وإسكتكت أنا كانوا كل مشاكل وارد أنت كل مشاكل قبل نصاص يعرفون كل شيء لكن أنت دمبنا وراقل أنا يتقول الشيء كسنجرنا ورقب أو كل شيء كسنجرنا أنت لكورينا يبو أو يعني قبل ورقد أو كل شيء كسنجرنا وربليا إلهي يا خانا أنا وحي ترى واجي وبريا دق أضيق آية وحي ترى أبي ريركا ويا ياب أفكسي قاعد تسأل سكوت دكتي هذا وحود أبو عنقتنا واتنا إلهي باب الباب كصادق وين كورينو سدح سنة جرتا gabadhiina waatan cunugta dhasho way noo timaade aabbow hadda guri baan kuu hagaajini waan kuu aroosini aabbow raalli ma ku tugu dhehe maya hadda diyaar umii maba rabiba hadda ma rabi war gabadhan ay dhashee gabadhan idinkaa dhasheene hadda meel la geyni ma la garanaayee bal si gabadhan aan u soo shaac bixinno inaad idinka dhasheen inaan annaga korsannay هذا واحد الدنيا ولا أركج القصة ولا أركج القصة ينقطع أرنتن بل جبنا حتى عن كون نكاحنا أو جري عن كوه جاجينو أو عنقتينا نقصة أو كرصة حتى عن كون قدرنا وديده أنا كمان غير كيرا لجمع كورسه وغيرها الله يس أنا هذا الديار مني مرة مايا ما حتى عن قوان كجارة لو ما قص بكرة جبنا يختار نو كوريا وجبنا يختار إسك كوريا ورجع إلى هي خانة دوقي أنيجي سقطك نايويلكي بربريني ونجد ديده قبل ما نكون نايتر نادي محاط كقبتها أنا أدويلك أقول يا أوكي يتر لكن دود ديده ما قص بكير هاي أديك واجع محاول شيء بس نين كان إجابة دفوركيس أدي برجع محاول شيء بس إلا برجع أسق خمسة أرنت وانكو قبل لين كان محاول شيء بس هدو أنا وحنا يدك لا تكوران هاي خيرها لا تكوران هاي إن هدا مركا كو شيء لها نابين بات شيء ويلك كم كورسين الباب كب حدي ديلات maxay ahayd aniga dhan aan la ceebeysan lahaa wiilkayga kaama dhali been baad sheegaad dhihi lahayd waa lay burin lahaa sidaa darteeda la cararo maxayd kugu sheegi waay inaad raalli ka noqonaysiin wiilkaan ugu daraysiin ma moodaynin sheekada markay halkaa marayso gabadhii way ogoshahay ninkan in la arooso oo loo dejiyo way ogoshahay laakiin kii wiilkaaba soo taaganaya wuu soo taagan yahay markaasaan dhahay tira kaale wiilkii baan soo qabtay aabihiisana waa soo qabtay laba xarig baan soo qaaday waxay tira gabadhina gacantaan ka xiray wiilkiina gacantaan ka xiray waxaan dhahay tira ducaya habaar maxay tira war wax bay sheegaysa wadaad waxay tira ma fahmaye waxay tira adii ducaya habaar mid doorta yani inaan isku daraan rabo isku aroosiyo oo cunugtiina adiga qabsatiin oo korsatiin sheekadana annaga waxay tira biil iyo guri iyo wax kasta annaga bixinayno oo meel ayna dejinayna idinka laba qof oo gabadhiina korsanaysaan oo isku darayo noqta haddaad hore isku soo meersateen waaba isqabtiin sidan isfurteen maya soo isma qabtiin ha aroosaan ina sameynayna raalli ka noqdo wiilkii adi isagoo diidan waxay dhahayn waxaan dhahnay tiraahe ama duco ama habaar mid la qaado yani wiilkayga waxaan ku dhahay tira ama duco ama habaar mid la qaado sidiibuu wiilkayga hayo ku dhahay hayuhuu dhahay adi la isku aroosi duqa waxay tira oo carruurta dhalay aabbaha reerka ayaa xaafad kale guri ku lahaa bay tira guri xaafad kale ku lahaa gurigiiba waxay tiraha u soo gogolnay u soo adeegnay gogol iyo sariir iyo alaabaan u gadnay guri duqa meel kale ku lahaa baa la dejiyey gabadhoodii yareedna waan raaciyey da gabadhii yareed may garanaynin gabadhanayda may ka saynine qasab baan ku barnay hooyadii ku dhasha waatanaan dhahnay tira
wiilka marka hore bay taqaanay moogta wiilka iyadu isku meel bay ku koran guriga isla joogin waa wiilka gabadha dhalay marka wiilka asagoo bay taqaanay gabadhii bay ka cararaysay diidaysay tira oo way diiday inay dhalin bay dhaysay tira markaasaan u sheegno hooyada waa tan aabahaadana waa kan annaga ayeeyaan ku nahay awoowo sidaa la soco inaan hooyadeed fahansiino baan ku qasabnay tira alaa kulli xaal wiilkii guri baan u kiray aan dejino oo duqa iska lahaa meeshaas aan ku biilnaa caruur kaloo badanna way isku dhaleen qisada intaa leeg ayaa dhacday baytir ayaa dhacday gabadhaas Soomaaliyeed oo wiilkaygu u dhahay tira reeraha lagama guursado ma guursana mi aroosinaysan wiilsoo istaagi anigu waxay tiri adduunyada qof la takoorayo ama qof waxay tiri la bahdilayo waxay tiri yaraantayda isoo cuntay wadaada dhaysa macnaheedu waxa dhaysa maam xakiima dhayso maam xakiima idoo yar reer soo korsaday say sheekada nooga sheekaysay waxay tiri anigoo yarba waxay tiri reer isoo korsaday stress iyo fikir iyo yani bahdil iyo waxyaalo waan ku soo koray marka waxay tiraahay gabadhan iyo ninkaas saasaan isugu aroosiyay hadda caruur kalena way isku dhaleen halkoodii bay degan yihiin reer dhan oo buuxa waaye taariikhtaas ayaa dhacday oo anigu waxay tiri filim waa igu noqotay tir oo riya igu noqotay tir marka igu ii sheegeen marka waxay tiri adduunyada intaad joogto nin walbo maxaa aragti ku laaban qisadaasna iyo wixii ka horeeyay maama xakiime ee adduunyada iyadana inta yareed ay soo la kulantay oo qisadii xalay aan ka sheekeeyay ahayd intaas oo dhanna maxay aheeday maama xakiime waa arrin goob joogay waheed waa arrin iyada ku soo dhacday iyo arrin haddana gabadheedii shaqaalaha ahayd iyo wiilkeedii ay haddana sameeyeen oo filim waa ku noqotay inay iyagu iska dhaleen ilmaha ridda loo soo dhigay arrintaasna marka sidaas ay u dhacday asxaabta markaan leeyahay youtube igala socotay share gareenta iyo subscribe iyo like marnaha ka hilmaamina commentigana waryaa waa muhiim idinku comment ma soo qortiino ma aqaan wax inagu dhacay faraha ma nila haasta beeskayga ma waxaan ilaga diiday inaad comment qortaan ma garanayo wadaad soo qortin anigu ay ila soo jawaabaa sheekooyinka ma garanaysa ka habeenna waxaan xoog saaray inaan wixii qiso iyo wixii iyo lagu qosloba inaan soo geliyaa kuwa Facebook waxaan leeyahay asxaabay share gareeya oo asxaabta kale la waraaga oo mideeda kale waxaan leeyahay Calaso Abdi channel YouTube ha lagu yaacaan kulay hada lagu yaaco asxaabay waa qaybtii labaad meeshan aan kaga hadlayo page-ka YouTube marka sidaas iyo habeen wanaagsan baan leeyahay asxaabteeno alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale ilaahay idinkiis